بسم الله الرحمن الرحيم qaybteenan oo ah qaybta ugu dambeyn doonta haduu Ilaahay yiraahdo lectureskeeni seriouska ku saabsanaa barashada waxa la yiraahdo Mendeley oo ah software loogu talagalay in lagu maamulo maaragtay reference-ga sidoo kale adeegyo dheeri bixi sida literature search-ga sida maalinta ka soo sheekeynayna maanta ayaa soo gabagabeynaa qaybteena ugu dambeysay waxa ka hadlaynaa waxa waaye sidee citation loo sameeyaa yani sidee reference loo sameeyaa waa qaybta ugu dambeysay aan maaragtay jeclaalaynaa sameyn sideedaba reference marka u baahan tahay maxaa reference laga bixiyaa dabcan reference waxa laga bixiyaa qoraal aad ka soo akhrisay ama ka soo xigatay meel kale aad ka soo qaadatay hadii waxa yahay your own maaragtay maxaa la yiraahdaa view ama aragtidaada ama your own maaragtay maxaa la yiraahdaa isha result ay tahay no need a reference لكن هدي waxa uu yahay theory ama aragti ama mabda ama maaragtay qoraal qof kale uu leeyahay wuxuu u baahan tahay in references ina u baahan tahay kaas waa qaybtaas marka si aan u siino waxyaalahaas mid kale waxa u baahanahay in wax qorid bilowno oo wax qorno marka waxa fureynaa word sidaan oo kale so wordka marka aad furto of course wordka waxa laga yaabaa inaanu maaragtay maxaa la yiraahdaa lahayn waxa la dhaho inaanu lahayn waxa la dhaho si qaab iskugu xirmaan usually marka aad meeshaan fiiriso meelahan wordka korkiisa intaan waa iska common laakiin waxa jira apps word kala shaqeeya tusaalaan inta hadda waxa igu dhagan aniga Zotero waa app oo reference management software-da kale app oo lagu maamulo si InDinote kale inta soo fuulayaan laakiin su'aal ay imaanayso Mendeley waxa go'o yimaada isaga usually Mendeley meeshaan kama soo muuqdo Mendeley wuxuu ka soo muuqdaa badhamkan waxa ku qoran reference marka reference ku dhuftay sidaan oo kale noqona meeshaan waxa ku qoran marka waxyaalahan maarag table of contents sida loo geliyo tab yani waxyaalahan insert footnote meeshaan waxa ku qoran insert citation inta waxa ku qoran style waxyaala kala duwan insert table ama figure maaragtay bibliography laakiin ma calaamadan waxaan Mendeley ma waxay ogaataa insert citation kan meeshan ku taalay insert citation oo word ku gooniyo waa usually wuxuu ku shaqeeyaa waxyaalo oo manual waxa soo ku shaqeeyaa manualna inta ugu baahan manual soo sheeg si marka aad isku xigtid Mendeleyga iyo wordka si aad isku xirtid waxa u baahan tahay inaad tagto Mendeleyga kadibna aad doorato meeshan ay ku qoran tahay tool manual waa tagnay xusnaada meeshaan maal hore tagnay web importerka meeshaan waa tagnay jack of duplication inta waxa lagu talagalay inaad dad groupkaada ku casuumtid oo colleague-gaada hadii groupkaada ku casuumtid sida maal hore dhihino kale inaad ku casuumto meesha lagu talagalay groupka maal hore abuurno kale so inta tageena waxaan ka dooranaynaa meeshaan ay ku qoran tahay install ms word so ujeeda Microsoft Word inaad maaragtay isku xiri karto laakiin install intaadan ku dhufan waxa ka horeeya ina wordka any file or word iyo wax la mid ah oo ku furan ina iska soo xirto hadii datadaas aynu ku save gareysaneed ina save gareysato kadibna aad maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg close iska dhahdo oo soo xirto maxaa yeelay isaga uu ka xiri doonaa macna marka ina save gareysato waa soo qaybahan marka waxa u baahan tahay inaad tool tagno kadibna aan tagno install word plugin for example wuxuu leeyahay wordka ama outlook ayaa hadda ku socda waa laga xiri doonaa uu leeyahay maaragtay maxaa yiraahdaa qaybaan marka intaadan okay yes intaadan waxa ka hor adiga soo save gareyso waxa laga yaabaa inuu data ka lumiyo so hadda ani data ima taala so waxaan leeyahay okay waa aqbalay hadda meesha ku celiso meesha install-ka maxay isku bedeshay uninstall so come to the maaragtay maxaa la yiraahdaa wordka hadda imo let's check maaragtay maxaa la yiraahdaa waxa iska bedelay setting-ka inta tagnay waxa tageena meeshan ay ku qoran tahay reference marka tagto maxaa soo kordhay intaana soo kordhay check for this intaan ma lahayn macna hadeet maxay noo dhigneed intuu ka bilaabanay insert citation meeshan ka bilaabanaysa laakiin hadda intaana nagu soo korortay ha isku qaldan marka insert citation this is the original word and this is the Mendeley inta waxa ku qoran bibliography inta waxa ku qoran bibliography but this bibliography is maaragtay maxaa la yiraahdaa wax asalka oo lahaa waaye kan oo lahaa ma ahayn wax oo maaragtay gadaalka imaada ma ahayn marka maxaa u baahanahay hadda marka waxa u baahanahay inaan wax qoridi bilowno si wax qoridi u bilowno waxa u baahanahay inaan horta marka wax soo aqrino
so file kana la furayna for example file kan haysana yani ina kulligood maaragtay wax soo maaragtay maxaa leeyahay marka hore weligaaba hal qaacido waxa waaye waxba qorin intaadan adiga wax aqrin adoo waxba aqrinaayo waxba maaragtay maxaa leeyahay soo aqrin inaa wax qorto waa laga fiican yahay because dadka waxa u sheegaysaa waxaadan adiga aqoonin marka waxa fiican dadkina u sheegtid waxa adiga taqaan usually ardayga marka ama maaragtay qofka marka research sameynayna waxa la rabaa aqoon sheegan inuu asiga aqoon baaxad weyn u lahaado oo dadka kale maaragtay maxaa leeyahay wax ka mawduuca waxa ku qoray inuu si deeply u baaro anaga waxa laga yaabaa inaan kadan copy-ga Soomaali ama copy and paste inaan maaragtay maxaa leeyahay laakiin copy and paste yani maalin hore waa ka soo sheekeen inay tahay mamnuuc marka la sameynayo research so waxa u baahanahay inaad tagno meeshan for example file kana noo furan hadda inta ana furay lacal kana tago marka tagto ciwaanka waxa la yiraahdaa waa incidence and risk factors of maaragtay maxaa la yiraahdaa Caesarean word infection okay and Lagos Nigeria laga sameeyay okay kan wuxuu ku saabsan yahay asagana prevalence and predictors of surgical site infection waxa laga sameeyay Rwanda okay this is asina wuxuu ku saabsan yahay determinants of post Caesarean wound infection waxa laga sameeyay Nigeria ayaa maaragtay maxaa la yiraahdaa laga sameeyay okay kan asina wuxuu ku saabsan yahay incidence and risk factors of surgical site infection okay kan wuxuu ku saabsan yahay incidence and predictors of surgical site infection okay this all wuxuu ku saabsan yahay C-section marka ciwaankan iskaga practice gareynana si marka hore waxa u baahan tahay inaad wax akhriso so this is article 1 article kan in aad soo akhriso qaybtan hore waxa la abstract waa khulaaso waxay khulaaso ku tahay introduction yarana ciwaanka ka siiyo inuu ku siiyo maaragtay finding waxa waa resultiga inuu ku siiyo maaragtay maxaa la yiraahdaa studygan resultiga ka soo baxay ilaa inta resultiga waa inuu conclusion soo sameeyo warkiyo faahfaahsan waa kan inta waxa waa background ama introduction qaybtan waxa waa methodology dhan ugu sheekeena oo isku soo maaragtay maxaa la dhex daray okay qaybtan waxa ugu sheekeena resultiga qaybtan discussion waa okay all of this qaybo kala duwan when you come to here marka kan imaado isna wuxuu leeyahay abstractiga oo intaana introduction yar methodology resultiga iyo conclusion inta badan sidaana loo qoraa abstractiga marka maaragtay maxaa la yiraahdaa la qoray qaybaan kadib wuxuu ku saabsan inta wuxuu uga hadlaa introduction inta wuxuu uga hadlaa method okay kan uu ma as well sidoo kale asna intii oo kale ayuu maaragtay maxaa la ku saabsan kan marka hore marka hadba wuxuu ku xiran tahay maxaa aad u baahan tahay salahan qodobka koowaad oo baahan waxa aan ciwaankayga lacag ka soo qaadba wuxuu ku saabsan yahay waxa loo risk factor su'aasheedu markuu xitaa risk factors ka la conceptual framework aan rabaa inaan sameeyo lacag conceptual framework marka waxa la iska rabaa inaan keeno risk factors ki yani conceptual framework sida loo dhigo hore u hadan see u baahan tahay marka waxa tageynaa kan for example muxuu kan ka hadlaa ciwaankiisa maxaa ku jiro risk factor so see ku ogaanaa risk factors asigoo ka hadlaa very easy come to his results haymaanina resultigiisa qofkan waa kane table kan kood maxaa waaye socio-demographic iyo obstetric characteristics yani socio-demographic factor iyo obstetric character oo isku daray so kan kood waa kan maternal age body mass index booking maxaa la yiraahdaa status waa waxaas oo dhan waa intaas wuxuu isku dar labadaas inta wuxuu ka hadlay okay labadaas factor oo ninkan ka hadlaya kan uu ma sina muxuu ka hadlay wuxuu ka hadlay demographic characteristics am demographic factors ilaa intaan waay kadib wuxuu ka hadlaa dana comparison characteristics women with first maaragtay maxaa la yiraahdaa without surgical site infection no barbar dhigo no matter okay so waxyaalahaas oo kale ka hadlay okay kan muxuu ka hadlay okay risk factors ka hadlay asin maxay demographic okay risk factors waa ANC iyo type of surgery rupture iyo prevaginal iyo types of incision iyo waxyaalaha risk factors kuwaan oo ka hadlay okay kam wuxuu ka hadlay asna wuxuu ka hadlay waxyaalaha risk factors ka waxa waa ko okay risk factors ka hadlay waa kuwane waxa kamid ah ko age ka baratiga BMI ga HIV status all of this waxyaalahan oo dhan oo ka hadlay ilaa people length maaragtay maxaa la yiraahdaa proper length of stay in maaragtay maxaa la yiraahdaa in hours maybe hospital wuxuu kaloo ka hadlay inta sidoo kale risk factors kale maaragtay maxaa la yiraahdaa ayagana sida maxaa la yiraahdaa waxyaalahan okay
all of this waxyaalaha soo hadda u baahan tahay marka qodobadaas kaas oo kale ku saabsan yihiin marka inta u maw su'aashu waxay tahay maxaa la side gareeyaa haddaa rabtiin wax soo xigato waxay ogaataa in every article ama maaragta maxaa la yiraahdaa thesis wax aqrinaysid laba wuxuu ka kooban yahay labada wuxuu ka kooban yahay waxa waaye wax qofkan isaga uu leeyahay iyo wax oo dadka soo xigtay wax isaga uu leeyahay haddaa rabti inaad citation ka samayso isaga u tiirinay waxa qof kale uu leeyahayna qofkaas kale u tiirinay yani aan simple aan kala fuuday meeshan hadda fiiri background oo ku qoran reference ma ku qoran maya okay meeshan fiiri reference ma ku qoran maya reference kuma qoran meeshan reference ma ku qoran maya reference kuma qorno haddaa rabto inaan waxyaalahan wax ka soo xigatid oo yani aragti inaa waxyaalahan ma aragti maxaa la yiraahdaa wax ka qaadatid aragtiyada noocan oo kale haddaa rabto inaad wax ka qaadatid haddaa u baahan tahay inaad reference siiso reference-gaas waxaa siinaa nimankan buuggan iskale waa kuwane nimanka ma aragti maxaa la yiraahdaa qorayaasha ma aragti maxaa la lahaa qoraalkan iskale nimankan waa laga soo bilaabo inta ilaa intaan waa qaybtaas waa haddii aad u baahantay inaad qaybtaas laakiin fiiri warkan oo kale soo qaadatay waxaa C section waa common operation oo ma aragti obstetric practice incidencegiisa worldwide ku kordhay sida lagu soo kordhay incidence range oo wuxuu u dhaxeeyaa 5 ilaa 25% ayuu u dhaxeeyaa asoo ku xiran nature-kii area-da lagu sameeyo muxuu dhahay 1 to 3 marka hadday hadalkan soo baaha hadda soo qaadato yaa siina yaa dhaha leeda ninka buugan qoraa dhahataa dhahdo is wrong waa dhihi kartaa mararka qaarkood laakiin waxa ka noqonaya secondary reference maxay inaad qofkii iska lahay maana qof kale oo aad ku soo aragtay secondary ka noqonay si marka primary ay kaaga noqoto waa inaad raadiyaa meeshan maxaa ku qoran 1 to 3 maana arko soo sheegan waxa dhaanay hadii la dhaho hakad hadii la dhaho waxay noqonaysaa iyo 1 iyo 3 laakiin hadii calaamadda la muujiyo waxay noqonaysaa 2 that means 1 ilaa 3 that means waxaan ka xalaa 1 2 iyo 3 yaa laga wadaa marka 1 to 3 1 to 3 waxa laga wadaa dadkan come to the reference ga imaanay waxa laga wadaa qofkan oo number 1 ah iyo qofkan oo number 2 ah iyo qofkan oo number 3 marka waxa lagaaga baahan yahay inaad saddexdan qof soo raadiso si u soo raadinay waa su'aasha intaan fiiri waxaan magac waa okay this is name at lg ciwaanka waa kane ciwaankiisa waa kane ninkan waxa waaye journalkii lagu soo daabacay okay sanadkii la soo daabacay foliumkii issue-gii page number-kii waxaas waa kan sidoo kale this is all intaan magac waa ciwaanka inta ka bilaabana okay illa intaana ciwaankii ma aragti maxaa la yiraahdaa ii sheeg ayaa for example inta waxa waaye journalkii lagu soo daabacay this is the journal name kan wuxuu noqonaa sanadkii la soo daabacay maxaa la yiraahdaa kan wuxuu noqonaa volume-kii for example maybe inaan issue la soo qorin intaana page number okay kan sidoo kale waxaan magacyo ayadana so magacyada iyo ciwaanka adaa kala aqoonsan karta marka akhriso waxaan inay magac yihiin iyo inay ciwaan yihiin kana marka dhahdo ma aragti maxaa la prospective audit wound infection rate after cystic waxa sino ciwaan yahay waa dareemi kartaa ilaa hakadka la eegay kaaso kan uma su'aal asna marka reference-ga tagto waa kala fahmi kartaa saaraan intaano kala magac waa u jeedi kartaa kan wuxuu noqonaa the burden of surgical side infection wuxuu noqonaa ciwaanka come to here marka si aad u soo heshid waxa u baahan tahay saddexdan ciwaan inay raadisid saddexdan ciwaan ayaa aragtidaas isla qaba saddexdan ciwaan inay raadisid waa si la raadiyaa waa ma aragti maxaa la yiraahdaa ay sheeg waa sameeyna gadaalan ma aragti maxaa la ka sameeyna si lamid intaas oo kale marka labada qodob kala ogaanayso waa maxay inaad fahamto waxna waxay u baahan yihiin maxaa la yiraahdaa ay sheeg waxay u baahan yihiin maxaa la yiraahdaa ay sheeg waxay u baahan yihiin reference waxay u baahan yihiin ma aragti reference qof kale loo raadiyo waxna waxay u baahan yihiin isla qofkan in laga soo xigto okay let's for example hadda hal qoraal ba aan ma aragti maxaa la yiraahdaa ay sheeg inuu tusiyo hadalkan oo kala soo qaatay lacal copy soo dhah so hadda hadalka highlight samaysid calaamadana taaba kartaa copy way ama hadda arto control c dhigi kartaa si ay copy garayso waa soo qaaday intaan baas ku soo dhah hadalkan inta baas ku soo dhah maxaa liga baahan yahay paraphrase of course paraphrase inaan sameeyo otherwise erayada sidan aan ku qaato waxay noqonaysaa qalad ay noqonay so inaan paraphrase sameeyo so waxa laga yaabaa time badan inaan u haynin inaan paraphrase sameeyo su'aalaha marka is weydiin hadalkan yaa iskale horta intee ka soo arkay waxaan ku soo arkay buuggan ciwaanka yaaba incidence risk factors ma aragti wound infection in Lagos Nigeria okay
ciwaankaasaa kusoo arkay reference ma kor qoran maya abstract waa wax walba abstract ku qoran qofkaana siinina see marka su'aashu xitaa see reference loo siiya space yara laga baxaa kadibna waxaa la tagaa meeshan ay ku qoran tahay reference kadibna waxaa tagana calaamadan yarta maxaa ku qoran insert citation kadib waxaa tagaa go to Mendeley kadibna waxaa aqoonsana ciwaanka buugga ka soo qaaday muxuu ahaa magaciisa of course waa inaad taqaanaa marka hore ciwaanka buugga meel lagu soo qortaa so meesha ka soo qaadna kan waa sama kan magaca ku qoran muxuu ahaa incidence and risk factors for Syrian wound infection Lagos Nigeria okay inta tagay marka waxa la marka aawe okay incidence ciwaanka fiir incidence and risk factors for wound infection Lagos Nigeria kan waa click ku dheh marka ku dhufato calaamad yar oo laba farood inta kaaga soo baxayso this is called site ku dhaha Sunday citation plugin so click side lead habis as well ku dhufato isla markii muxuu sameeyay fiiri mid wuxuu sameeyay number 1 so those who cannot see number 1 wuxuu ka wadaa number 1 wuxuu ka wadaa dabcan qofka number 1 waa yani maxaa la wadaa the first citation sameeyso laakiin mar walba inuu number 1 qor qasama okay come to here meeshaan maxaa ku qoran style inta ka bedelay mar okay ani waxaan rabaa ka soo qaad American Psychological Association maxaa laga wadaa abba okay abba waa kan okay kan waxa waaye Vancouver kan waxa waaye Harvard kan waxa lahaa JAMA national waxaan way badahay macna so hadaa rabto Vancouver ka dhowr nooca Vancouver oo waxa jira Elizabeth ama Vancouver caadi hadaa u baahanta style kale inta laga raadiyo oo u tagi doona hadda la waxa u baahanahay American Psychological Association abba click oo bedel ma fiir wuxuu noqday noocaan noqday hadaa u baahan tahay Vancouver click Vancouver saana noqon hadaa u baahan tahay Harvard marka yani waxa ka wadaa hadba yani ma u baahnid wixii aan soo xifdineen oo aan dheeyna style-ka saan waa wax xifdis ma kaaga baahan you will only click asaaba bedelay mid ka aragtid maxaa la hadii marka journal gooniya ama maaragtay jaamacaddu ay ku dhahdo nooc hebel u soo bedel isla markiisana u bedeli kartaa so hada waxa ku qornaa abba ayaa ku socona marka waa kane inta waa kane kadib maxaa leedahay full stop halkaana dhigay waliga full stop ka meeshan ha dhigin citation core waxa dhigaa marka meeshan maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg ka dambeeya ayaan maaragtay maxaa la yiraahdaa dhigayna si maaragtay maxaa la yiraahdaa noogu sii socdo okay insuas fa laakiin ogaada qaladka asameyn hadda waxa hadalkan waa inaa u sameeysaa paraphrasing oo u sameeysaa okay of course waa inaa paraphrasing u sameeysaa waa inaa soo aqriso waxa aad ka hadlayso waa inaa si fiican u soo aqriso hadii waxa aadan soo aqrin way dib badan tahay inaad maaragtay maxaa la yiraahdaa wax kale aad maaragtay meesha iska keentid macna okay hadalka had mid kala rabaa inaan tusiyo mar waxa kala rabaa inaan tusiyo meesha hadda u laabana hadii aad u baahdo ka waran kaas waa fahmi kan waxa u fahamtay hadalkan waxa ka soo qaaday ninkaana ka soo qaaday maadaama aanu reference core qoran asaasi okay su'aal ay maanaysma hadii ka waran hadalkan u baahdo ka waran lacala kan copy soo dhab for example copy soo dhab maxaa ku qoran 1 to 3 okay 1 to 3 so 1 to 3 mu baahnaani 1 to 3 waa tira laakiin inaan soo xasuusanahay 1 to 3 1 to 3 so maxaa sameeynaa mar hadalkan waxa iskale hadaa dhaa koor inta tago aad dhaho maaragtay maxaa la insert citation go to Mendeley dheh ninkaana ku soo arkay kan si no that's not known ma loo baahan waxa hadaa saa sameeysid waxay noqonaysaa secondary citation and primary laga rabaa saas soo xasuusnaa qaybaad see marka maxaa xalama xalku waxa waaye simply inaan maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg tago maxaa la dhahaa meesha hadda inaan ku laabto yaa waay hal ilaa 3 soma meeshaana taga waxaan leeyahay qofka koowaad ilaa qofka saddexaad yaa waay qofka koowaad waa kane marka waxa sameeyna nimankan waa soo raadina saddexdaan inaan soo raadina si u soo raadina ama ciwaankooda raadi ama qoraalkooda raadi hal mid aan tusana si loo raadinayo salaad ninkaana ka bilaabo ciwaankaana ka soo bilaabo ciwaanka soo qaada mu baahani magacyada waa ku raadi karaa waxa tagaa meesha ay ku qornayd library kadib waxa tagaa meesha ahayd literature search maxaa yeelay ayada ay fudud literature search inta tagaa basta soo leh enter demer okay muxuu dhahay intaana soo helay inta labadan waxa laga yaabaa aad isku dhow yihiin waxa iska fiirsaa qoraayaasha iska fiir waligaab qorayga waxa waaye OB Fasuba okay inta tag yaa waa ninkan OB Fasuba is correct kana sax waaye
maaragtay maxaa la kana sax waa labadaba laba nin oo laba sax waa yani si u kala horeeyaan soo kana hadda soo qaadana soo qaad waxay soo gelisaa meesha hadda intii soo geli okay time added soo kale yes sorry على نقول سوقن magac ku qornaa muxuu ahaa of course waxa laga yaabaa inaan nil waxa ku qornaa incomplete okay okay so kaasina aan maaragtay maxaa la ku socon hawsa ka raadino is it possible inuu maaragtay maxaa la hore garay ama title la dhahno for example okay maybe inaan wali soo gelina laga yaabaa so okay oo soo gala laakiin waa okay aku celiyo okay yes haduu yimaado waa kan ko heesa kan hay loobin waa soo helay ninkaas kan labaad waa kan muxuu ka bilaabanaa magacyo waa waxan waa kan wuxuu ka bilaabanaa a review cesarean section hospital ilaa intaas so nonina full stop ka qaadnay library tag literature search tag kan iska cancel garay kan baas ku dhig maxaa ku qoran a review of maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg c section so maybe it's cast beside okay maybe it doesn't seem I don't know muuqan so markaas oo kale waxa sameeyna calaamad yareed inverter komada ku xira si aw isku day inaan bal isaga bisoo helo wuxuu dhahay lama soo helin yani waa la waay si ka dhigantahay waa la waay qaybahan okay so if he says waxa laga yaabaa inaan wax naga qaldin aw laabano ilaa hospital okay صح wala waayo dhahay maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg qaybahan kan oo kale wala waayo ayuu maaragtay maxaa la ku leeyahay hadii la waayo marka maxaa xala hadii la waayo xalku waxa waaye inaad tagto maaragtay maxaa la Google-ka oo Google-ka ka soo raadis sid ina Google-ka ka soo raadis ayay maaragtay maxaa la lahaa ay sheeg ayay noqonaysaa so I will search it in maaragtay maxaa la lahaa in Google okay a review okay magac ku qoran waxa waaye okay a review of this section okay magacaas soo qoran so let's try to find it ama inta aan filter comment isticmaalo si aan asib soo helo maxay hal xabba bis raadinay markaan wax badan ma raadinayso okay hal ayayno kan oo kale inta kale ku qoran yahay mujid so a review of maaragtay hebel tropical maaragtay maxaa la yiraahdaa journal oo saxsanaa tropical journal okay halaga yaabaa inuu ciwaanka qaldan yahay sometimes okay incidence and risk factors cesarean function sorry kan maaha it's wrong okay a review so let's try to find it okay we miss it sometimes we can miss waa weyn lacala kan so we miss it no matter marka hadii aan maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg miss gareeno aan maaragtay weyn waa soo laabana xalay kan waa kana u maanama kan saddexaad oo lamar saddex ku jira ilaa intaan hospital okay kam maybe waxa laga yaabaa dadka qaar inay xogta si qaldan u soo gudbiyaan ama reference-ga oo maaragtay maxaa la ka qaldamo and that's why you can miss sometimes maaragtay qaybahan okay kana kale waa la waayo wuxuu dhahay waxa la a pro selective audit sino wuxuu leeyahay soo way calaamadan laga yaabaa inay mushkilad keenayso ya a pro selective waa kan waxa ku qoran c nice okay magaca sax miya okay yes sax c nice so qaad inta noo soo gali okay don't know why I soo gali waayo marka la ku soo celi okay a pro selective yes okay sorry a pro selective audit sama okay kan waxa waaye prospective okay sax sorry waxa dhahay pro spective sorry so a prospective sidaan oo kale tawa okay wasaxanahay marka laba xabba soo helay waxa soo helay kan iyo kan soo helay waxa soo helay kan iyo kan waxa u baahan tahay qoraalkan in akhrisid
labadan inaad raadisid maaragtay maxaa la yiraahdaa buugtoodii inaad maaragtay raadiso adoo isticmaalayo calaamadan oo kale adoo isticmaalayo kan adoo calaamad isticmaalayo inaad maaragtay soo raadiso buugtoodii waxooda ama kan adoo ka raadinayo inaad waxa u baahan tahay buugtoodii waxooda soo hesho marka buugtooda soo hesho kadib aad fiiriso bal hadalkan oo ninkan oo ka sheegay labadan saddexdaas nin hal xabo weyne sax ma yahay hadda marka waxa u baahanahay hadduu sax soo noqdo oo maaragtay maxaa la okay oo soo noqdo waxaa sameynaa inaad soo xigto marka soo xigana waxaa la insert citation waxaa la go to Mendeley yaa u taga yani ogow saddex shay kala jiro hadda saddex shay ay taal meeshan waxa ay taal ma ninkaana soo xigtaa oo qoraalka asi aan ka soo qaaday no maya maxay yeelay qoraalkan waxaa ku hor qoran hebel iyo hebel saddex hebel waa saddexdii hebel marka u tagay waxa ay soo baxay inay kala hayeen saddexdaan nin laba nin hal nin waa waaye laba nin aan soo helay hadda marka maxaa sameynaa waa u tagaa labada nin oo aan soo helay ayaan citation kan siina si ugu noqdo primary maxaa yeelay ani waxaan asiga wuxuu ka soo helay nimankaas anna nimankiyan ka soo helay haddaan dhaho ani ninkaana ka soo helay haddaan dhaho yani secondary qof aan hadalkaas lahayn aan siisa macnaha so waxaa leeyahay marka insert citation go to Mendeley labada nin aan sii su'aal ay imaanayso sidee laba qofood hal mar u wada sameyn karaa u wada soo xigan karaa haddaad rabtid inaad laba qofood hal mar soo wada xigatid intaa click dhahdid oo side dhahdid haddana ku soo laabatid no need that's impossible maxaa sameynaya marka kan ku dhufo marka ku dhufato waxaa taabataa calaamadda controlka adoo calaamadda controlka gacanta ku hayo haddana kan kale aad rabtid inaad soo xigatid ku dhufo hadda micnaheedu waa maxay labadooduba wada saarayaan citation haddaad rabtid inaad mid saddexaad ku dhufto oo kusii daree mid afraad haddaad rabtid waa kaas adoo controlka hayo marka maadaama labadoodu hadda ay wada dooran yihiin waxaan leeyahay marka side so side marka dhawaa kale NICEDL oo 1996 ah iyo OPL oo asna 2000 laba qof ay keeneen laakiin isku jiraan macnaha saas oo kale ay maartay ka dhiganta waxa leedahay full stop tin qodobkaasina maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg ila fahmi kartaan yani waxaan ka wadaa haddaad rabto inaad maaragtay qoraal wax article noocaan haddaa wax ka soo xiganaysid laba waxay wax isku jiraan waxana qofka article kan iska laha iska leh oo asi fikirkiisa iyo qoraalkiisa waa sida waxaan oo kaleeto waxyaalaha resultiga ku qoran waxana waxa waaye waxyaalaha background iyo ku qoran iyo waxyaalahan oo kale waxay leeyihiin reference leeyihiin wixii reference leh qofka ku hor qoran raadi asiga maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg reference maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg in uga dhig ay maaragtay maxaa la u baahanta marka waxa kale jirta waxa waaye marmarka qaarkood waxa la qoraa hadda kan oo kale ciwaan ma laha waxaa laga marka introduction ka waxa sameynaysa marmarka qaarkood waxaa laga qofka qaar inuu wax gooniyo qori karo wax gooniyo tusaale waxaan rabaa inaan soo helo membrane rupture adeed waxaan soo helay membrane rupture ka xiriir ma la leeyahay maaragtay maxaa la yiraahdaa history oo membrane maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg membrane rupture ku xiriir ma la leedahay maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg qofka inuu maaragtay membrane rupture la xiriir ma la leeyahay kaas ama sex mararka qaarkood inaad ka hadlaysid sida laga yaabaa xiriir sex ya name age hooyada da'deeda saameyn ma ku leedahay hadda u baahan tahay marka inaad membrane rupture ka hadasho ama age aad ka hadasho at that time wuxuu u baahan tahay inaad literature-da ka akhriso meelaha resultiga su'aalaan inta taga waxaa leedahay waxa u baahanahay maaragtay meesha oo maaragtay maxaa la resultiga si for example kana kale waa kan maternal age waa kan okay maternal age waa kaase for example meelahan oo kala taga waxaa leeyahay waxaa raadinaa age oo kale wax xog ku saabsan okay read here halkan dhan inaad maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg waxa u baahan tahay inaad maaragtay maxaa la akhriso okay higher marked among subjects okay waxyaalaha noocaas oo kale hadii marka u baahan tahay membrane for example membrane rupture ama age wax la mid soo meelahan in akhriso marka wixii oo maaragtay meeshan looga hadlo inaad maaragtay ka hadasho hadhooti marka qorays marka waxa u baahan tahay markaas oo kale waxa u baahan tahay study ina paraphrase sameys a study conducted by study oo sameeyay ina dhahdo kadibna qofkii sheegto dhahdo for example qofka hebel study-ga waxa sameeyay ninkaan sameeyay study-ga uu sameeyeen maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg nimankaan ay sameeyeen maxaa la yiraahdaa ii sheeg hebel maaragtay maxaa la ay sameeyeen found that maaragtay maxaa la yiraahdaa found that age was maaragtay significantly
related to maaragt maxaa la yiraahdaa ay sheeg C section for example so inuu age ku la xiriiro C section inuu la xiriiro si significantly ama age was not maaragt significantly maaragt inuu la xiriirin ama higher age ku badnaa ama maaragt maxaa la lahaa youth ku badnaa hadba saartid maaragt laakiin waxa u baahanahay si aad u sameeyso citation si aad u sameeyso qodobkaas u baahana I think it is clear maaragt maxaa la qaabka loo sameeyo referencing qeybahan marka waxaan oo dhan wuxuu u baahan tahay in akhriso marka si for example haddaad rabtid inaad literature qortid ama aad rabtid inaad background qortid waxa u baahan tahay inaad meelaha background-ka aad maaragtay maxaa la ka akhriso haddaad tusaalaan hadalkan oo kale aad rabtid hadda inaad soo qaadatid si for example qofka wuxuu rabaa inuu soo qaato hadalkan oo kale ilaa intaan oo kale rabaa inuu soo qaato haddaad rabtid intaan oo kale aad soo qaadato yaa qoray 1 4 ilaa 6 macnaa 1 qofka ah waa qofka koowaad waa qofka raadinay waa maaragtay maxaa la iyo qofka afaraad ilaa qofka lixaad macnaheedu waa maxay 1 4 5 6 marka 1 waa soo heshay waxa u baahan tahay 4 iyo 5 iyo 6 inaad raadiso inaad reference-ga tagto aad raadiso 1 waa soo heshay inaad raadiso 4 5 6 saddexdan inaad raadiso marka saddexdan nin maaragtay maxaa la yiraahdaa soo hesho haddana drag soo dhahdo kadib marka qoraalkaas aad soo qaado inaa insert citation inta dhahdo ka samayso marka aan ku celiyo qaybta ugu dambaysa waxa waa marka aad qoraal qortid oo aad maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg meel qoraal ka soo qaadatid si aad u samayso reference waxa u baahan tahay inaad tagto reference kadibna aad tagto insert citation kadibna aad tagto go to Mendeley kadibna buuggii aad wax ka soo qaadatay ama maaragtay maxaa la qofka iska leh mararka qaarkood buugga wax ka soo qaata qasama maxay leedahay anoo kan wax ka soo qaata qof kale siinay maadaama kan wax ka soo qaatay laakiin qoraalkaas waxa la dhahay waxa iska la qof hebel iyo qof hebelkii soo raadiyay inta soo galay qof hebelkii siinay hadduu hal qof yahay inta ku dhufo calaamada saaba hadduu laba qof yahay inta ku dhufatid waxa taabata adoo haaya maaragtay maxaa la calaamada oo maaragtay control-ka adoo haaya haddana midka kale aad rabtid ku dhufo for example hadduu kan yahay kan ku dhufo hadduu saddex yahay kan ku dhufo for example had basaaratid maaragtay u sameey kadibna waxa taabata calaamadan taabo soo kisaano kale ku noqonaa mar okay qodobkaas marka sidaas oo kale ayuu maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg ayuu ku noqonaa so let's come back sidii hore ku celi sidaan oo kale maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg ayuu maaragtay maxaa la ku noqonaa haddaad rabtid inaad bedesho style-kan ha tagin style-kan waa kan waxa iskala word-ka inta tagay laba insert waa dabcan inta shaqul ku saddex insert waa intaan ba shaqul ku leeyahay kana shaqul ku leena calaamada Mendeley-ga ka muuqato waxa tagana inta hadii aad rabto maaragtay maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg waxa u baahan tahay Harvard waxa u baahanahay inaad dhahdo for example Harvard sidaan oo kale noqonaa for example waxba iska bedelmay magacyada soo gaagabismay yani hadaa u baahan Harvard inaad sameeyo hadaa u baahan tahay inaad sameeyo maaragtay maxaa la style-ka hadaa u baahan tahay styles badan waxa tagay meeshaan waxa qor mo style demo style marka inta ku dhufan style-ka rabto for example waxa u baahanahay Vancouver for example right la ka soo qaad bina u baahanahay Vancouver so Vancouverada jira fiiri waxa jira Vancouver Elizabeth author data macnaheedu badin Vancouverada maaragtay maxaa la jiro way badin laakiin waxa u baahan tahay inaad hal xabas kan oo kale soo qaad Vancouver kadib waxa leedahay use this style okay kadib waxa leedahay done okay so Vancouver ku noqona waa kaasi bracket kan yar ku noqona inta badan waxa mararka qaar caana in la isticmaalo asana maaragtay maxaa la jeemaha uu ku duwan yahay asiga bracket-ka meesha ka isticmaalaya kan maaragtay bracket kan asoo wuxuu isticmaalaa bracket kale oo maaragtay maxaa la okay so bracket kale oo maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg mararka qaar kood ka duwanaa saalaan kan oo kale fiiri University of York Harvard noocan oo kale for example Spring Vancouver ka bracket ku bedelayaan kaas oo kale markii usually inta baan Harvard waxa la isticmaalaa ama inta baan Harvard la isticmaalaa ama Abba la isticmaalaa inta baan thesis-ka iyo xalal mid ku xaloo isticmaalaa ama Abba oo ah American Psychological Association kaasa Abba loo soo gaabiya ama waxa la isticmaalaa Harvard so Abba for example wadam marka qoraaladaad iska wado waxaad iska qor marka waxaad oo dhan dhameysatid waxa tagtaa page cusub example page kana taga su'aalaha marka imaanaysa reference-gii marka maxaa la yiraahdaa ay sheeg waxaan waa fahmay waxaan waxa waaye citation-kii waxaan waxa laga rabaa inaad sameyn ka reference list so waxa taga meeshaan oo kale waxa sameynaa waxa la ciwaan qoraa reference list hadba sidii maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg laga rabo so marka tago kana waxa taga meeshaan ay ku qoran tahay reference marka la u celinaa
meesha data aday inta hadda waxa doorna meeshan waxa ku qoran insert bibliograph hal mar kale ku dheh just can you see waxa soo galay meeqa xabaa soo gashay 1 2 3 maxaan u kala horeeyaa alphabetical order maxaa yeelay waxa isticmaalaha American psychological abba isticmaala marka saddexda xabba maxaa laga wadaa qofkan intaan hal qof waay ogow meeshaan laba qof ku jirtay laba qof oo kala duwan intaan hal qof waay intaan hal qof kala waa marka saddexdoodii ayuu maaragtay maxaa la soo galiyay haddaad tusaalaan wax kale qof kale ku darto aswal uu soo gelinaa macnaha maxaa la ay shaqeeyaan tusaalaan tago inta kala tagaysana let's for example waxa u baahanahay asna waxba uga baahanahay intaan oo kale u baahanahay okay okay ama inta kala tagay for example qoraalkaan oo kala tagay wuxuu dhahay delivery by C section has been reported okay kan oo kale okay copy soo dhahay waxa u baahanahay marka copy soo dhahdo inaad sameyso paraphrasing mar walba ogow waxaan copy bas ma loo baahno inaad paraphrase sameyso waxa sameynaa marka yaa ka soo qaaday waxa hadalkan yaa ka soo qaaday ninkaana ka soo qaaday ciwaankiis maxaa determinants of post C section waxaan ogaataa reference ma koor qoran maya waxa uu koor qoran hadayna waxba koor qornay ninkaana siina laakiin haday wax koor qornay yihiin wixii qofkii koor qornaa inay raadiyo ay maaragtay maxaa la noqonay so waxa tagaa marka maaragtay maxaa la yiraahdaa insert citation okay sorry okay waxa tagaa insert citation kadibna waxaan leeyahay insert citation sorry go to Mendeley kadib maxaa waaye ciwaanka muxuu ahaa determinants of post C section so okay look magaca ku raadi okay determinants of post C section okay okay ama waxa samaysaa inta waxa uu habeesaa title hal mar ku dhufo si uu kugu hormaro alphabetical okay waa kanima determinants of post C section Nigeria ku dhufo waxa dhahdaa site waa kan mar magacaas soo gal magacaas soo galay sax miya magacaas yes magacaas sax waay maxay marka aad tagto meesha marka aad tagto nimanka qoray ku qoran yihiin waa kuwane okay maxaa la yiraahdaa ay sheegeen onio maark maxaa niyama hebel waxa kanoo kale ku bilaabay maadaama la sameynayo last name ka maadaama laga bilaabay kadibna adl ku daray adl maxaa laga wadaa waa badan maadaama ay badan marka waxa waa 1 qof 2 qof 3 qof 4 qof 5 qof 6 qof 7 qof 8 qof marka 8 qof ay yihiin kaas oo kale waxyaalahan halkan iyo waxaan ku qoran waxa waay institutionada ay ka socdaan qofkan koowaad wuxuu ka socdaa Department of Obstetrics and Gynecology maaragtay jaamacadan oo ka socda qofka lambar 2 wato wuxuu ka socdaa jaamacadan oo ka socda qofkii lambar 3 wato meeshaan oo ka socda marka saddexdan institution ay ka socdaan marka qofkan iyo kan maaragtay maxaa la iyo kan intaan hal meel ay ka wada socdaan kan iyo kanna isku meel ay ka socdaan kaas oo kale ka dhigan tahay bis lagu aqoonsado laakiin no matter maxaa la yiraahdo waxyaalahaas waxa shaqo kuma waa kaasi mid kale tusaalaan soo gelinaa raal nool waxa u baahanaa ka soo qaadba isla ciwaanka raba inaan soo qaado waxa raba inaan soo qaado hadalkaan oo kale u bagay lacag waa akhrisay marka akhrisay hadalkaan oo kale waxa dhahay intaana u baahanaa lacag soo qaaday waxa aan meelaha soo qaadaysidna waa inuu ka dhaxeeyo coherent waxa waxaan kan warka meeshan ku qoran iyo warka meeshan ku qoran waa inuu xiriir ka dhaxeeyo because qofka markuu aqrinayo haduu waxaan intuu aqriyo ka hadasho kismaayo ka hadasho oo haddana inta markaa ka hadlaysa baladweyne ka hadasho yani waxa ma sameeynayso marka waxa waxayna noqdaan wax isku dhow ayna noqdaan macna wax isku dhow oo maaragtay isku wax ka hadlaa ayna noqdaan hadda waxa laakiin for practically yani waxba inta saa bis reference hadalkaan oo kala soo qaad hadalkan ayaa ku qoran lambar 2 iyo lambar 2 maadaama marka sababta hal mar u soo wada qaadaa waxay maadaama ay wada sameeyeen hal qof ay ka sameeyeen so inta waa ka deena okay inta waa ka deena inta kala soo haray waxa waa qofka labaad soma qofka labaad saxan sameeyna waxa tagaa reference-ga waxa tagaa qofka labaad oo tagaa so I will go to the reference host qofka labaad wis qofka labaad yaa qofkan waxa lahaa nail t ciwaanka oo ka hadlo waxa post pregnancy genital tract ayuu ka hadlay aan maaragtay maxaa la wound infection intaas oo ka hadlay intaas copy soo dheh library-ga ma literature search samee meesha maaragtay maxaa lahaa post let's try inaan soo helno waa kane nail isagu ninkan so kan soo qaad waxa dhacdaa inta soo gali okay let's for example inaan maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg inta soo galino oo maaragtay oo noo sameys magaciisa maxaa ku qornaa okay nail for example title oo kala habeeno n okay
markaas magaciisa waxaa la lahaa okay n maybe it takes xoogaa yar time due to the internet waxaa laga yaabaa inay waqti yar qaadato inuu soo galo kusoo celi mar kale okay magaciisa wuxuu ka bilaabanaya sorry n ka bilaabanayn magaciisa wuxuu kusoo bilaabanaya I'm sorry magaciisa wuxuu ka bilaabanaa post yes sorry wuxuu ka bilaabanaa post b ka bilaabanaa okay post pregnancy waa kan laba jeer soo gelinayso mid ka mid ah isku tuurno waa kan ninkan okay kan sama marka inta taga waxa leeyahay insert citation then go to Mendeley inta ku dhufo waxa dhacdaa site so I will give this me lakin usually waxa ka horeeyo waxa waa intaadan waxaan sameyn inaad maaragtay maxaa la ii sheeg soo aqriso yani qofkan buugiisina soo aqrisaa ka horeysa marka hore oo waxaan laga soo xiganayaa soo fiiriso whether inay ku qoran yihiin inay maaragtay maxaa la ii sheeg ku qornay marka hoosta qoraalka asaas iska sii soconaya adiga mar rabtid inaad wadid asaas mar walba wax ku soo dirtid kan wasiisa kana hadda marka fiiri kii hadda soo gelisay soo galay haa soo galay waa kan therapy n post maaragtay maxaa la ii sheeg pregnancy mar dambe uma baahnida wax soo gelis haddii hal mar aa wax soo geliso wax allaale wixii kale oo ku soo darto asaas soo galay you don't need maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg wax dambe inaan soo geliso marka intaas waxa uu gudbaynaa bal inaan citation kii sameyn karno haddii aad u baahan tahay oo wax soo geliso ama qalad iyo waxa soo geliso ka weyso dabcan waxa isticmaashaa calaamadda refresh wixii aad soo gelisay ayaa ka soo muuqanaya marka qoraalka iska sii wado wax ku soo qorqor kan asaa ka sii sakanaya hadba oo ka sii sakana beeshkaas oo maaragtay maxaa la yiraahdaa kaasiyada no need marka inaad ama hadaa rabto waxaad dhan marka sameeysato ayaad soo gali kartaa qaybaan marka ku celi waxaan aanay maanta waxa baranaynaa sida loo sameeyo reference waxaan hadaa u baahan tahay marka hore waxa u baahan tahay inaad tagto tool kadibna aad taabato calaamadan aad taabato install meesha hadda install isu noqonay inaad taabato si isku xirto wordka iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa Mendeley marka isku xirto kadib inaad bilowdo qoraalka waxaan qoraalkana laba nooc waaye reference-ga waxana marka article-ka marka aqriso waxana waxa dhaanay reference kuma hor qorna sida kan oo kale waxana waxa dhaanay waxa ku hor qoran reference ayaa maaragtay maxaa la ku hor qoran sida maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheegeen maxaa la qoraalkan oo kale waxa ku hor qoran 19 soo qofka 19 aad inay raadisid waa hadii marka hadalkan aad copy dhado oo aad ku sameyso paraphrasing wordkaada geyso waxa u baahan tahay qofka 19 aad inay raadiso marka qofka soo hesho kadibna maaragtay maxaa la yiraahdaa qofkan aasiisa reference-ga laakiin waxaan dhaanay hadii aad meeshaan oo kale wax ka soo qaadato ama maaragtay maxaa la abstract-ga ama ka soo qaadato maaragtay maxaa la yiraahdaa maxaa la ii sheeg maxaa la methodology-da ama wax ka soo qaadato result-ga ama wax ka soo qaadato maaragtay maxaa la yiraahdaa discussion-ka ama conclusion-ka waxyaalaha meel aan reference ku hor qornayn hadaad wax ka soo qaadato sida intoo kale waxa u baahan tahay inaad reference-ga siiso qofka buugan ama article-kan iskale oo magaciisa ku qoran yahay oo kan ka soo xigata u baahan tahay kan naftirkiisana ku soo hadii laakiin uu ku hor qoran yahay number ama qof oo ku hor qoran yahay maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg maxaa la yiraahdaa magaciisa hadii uu ku hor qoran yahay you need inaan maaragtay maxaa la yiraahdaa qofkaas raadiso tusaalaan maaragtay maxaa la waxa aqriis hadalkan oo kale intaana dhahday waxa ku hor qoran 20 soo qofka 20aad reference-ga inay raadisid soo qofka 20aad aawe okay just qofka 20aad waa qofkan inay raadiso u raadinay waxaan intaan waxa waaye magac waa for example magac ciwaanka intuu ka bilaabana ciwaanka inaad ku bidhaado kadibna aad library tagto kadibna meesha literature search-ga tagto inta aad ka raadayso daa soo hesho inaad drag soo dhayd marka aad drag soo dhayd inta tagto aad sameyn karto qaybta sanadsan si waxa dhacday aarif u sameyso citations u sameysan waxa tagayaan reference kadibna waxa doonay insert laakiin insert citation-ka goorma ku soo baxa marka aad isticmaasho maxaa la yiraahdaa ay sheegeen word-ka marka inta calaamadan marka soo geliso marka soo baahna marka inaan insert citation hadaa u baahan tahay inaad soo geliso reference maxaa dhaanay waxa u baahanahay dhahan inaan maaragtay qorno calaamadan ama ereygan maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg reference inaad qorto marka reference qorto kadibna aad taabato intaad page inta tagto meesha aad joogtay meesha inta tagto aad geliso meesha ay ku qoran tahay insert bibliograph dan uu ku soo daadanaa wixii kale oo dhan so inta wax manual haba yaraatay ma soo galayaan everything wuxuu noqonaa asaas sax noqonaa hadda fiir waxa uu horeeyo qofka magaciisa maaragtay maxaa la uu horeeyo kadib waxa ku xigo sanadka kadib waxa ku xigo ciwaankii maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheegay ku xigo kadib waxa ku qoran fiir journalka oo ku qoran italic ku qoran
kadib waxa ku qoran volume-kii kadib waxa ku xiga issue-gii kadib waxa ku xiga page number-kii kadib waxa ku xiga maaragtay maxaa la lahaa DOI iyo xaalihii lamidka digital object identifier aan ka sheekeynay haddaa bedesho style-ka haddii aad bedesho look soo isku bedelaya rabaa inaan meesha anagu joogno aragno haddaa style-ka bedesho oo u bedesho Vancouver haddaa u bedesho way isbedela okay soo celi maaragtay maxaa la page-kaada cancel for example haddaa Vancouver u bedesho maxaa imaaday horta marka hore number ay imaanay maxaa yeelay Vancouver number ku shaqeeya maadaama uu maaragtay maxaa la number imaaday muxuu kala sameeyay qofka waxa uu horeeya magacyadii maaragtay maxaa la u horeeya taariikhda meesha ka baxday maxaa imaaday ciwaankii imaaday kadib waxa imaaday journalka magaciisa italic maaha markaan journalka italic maaha sanadka gadaal la geeyay waxyaalahan kala oo kuwaasay leeso ay kala bedelayeen totally marka sida ay maaragtay qoran tahay haddaa bedesho oo aad geyso Harvard haddaa geyso sidoo noqona waa kaasay Harvard haddaa geyso sidoo kale ayuu maaragtay maxaa la noqona soo fiiri Harvard muxuu isticmaalaa calaamadan inverted comma ayuu ku xiraa ciwaanku ku xiraa laakiin abaha kuma xiraayo calaamadaas inverted comma kuma xiraayo macnaha maxaa la yiraahdaa ay sheeg ciwaanku kuma xiraa so waxyaalaha farqiyaadka u dhaxeeya maalinta isku soo arkeen qeybaan so intaas waa inta maaragtay maxaa la sidee loo sameeyaa citation waxaan barnay sidee loo sameeyaa wordka sidee la iskugu xiraa horta wordka iyo sidee la iskugu xiraa iyo Mendeleyga sidee loo sameeyaa citation hal citation sidee loo sameeyaa laba citation tusaale waxaan hadii hadda maaragtay maxaa la u baahan tahay hal citation ama laba citation oo kala duwan hadda u baahan tahay laba citation inta isla gelis ama saddex waxa u baahan tahay insert bibliography ina dhahdo go to Mendeley midkii maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheega u baahneed inaad tagto adoo control-ka ay kii kale inaad ku dhufato kaasi u baahan tahay marka sidee hal citation loo geliyaa sidee laba loo geliyaa sidee saddex loo geliyaa kaas oo kan waxa kale aragnay sidee loo geliyaa reference-ga sidee loo geliyaa reference list waxa kale baranay sidee style-ka loo kala bedela so style-ka inta jiro kan hadda style-ka loo baato waxa tagayaan mo style kadib meeshaan style-ka arabtida maaragtay maxaa la ku qoranaysa ama calaamadana ka soconaysa si uu heshid maaragtay maxaa la style hadii aynu kugu jirin meeshaan waxa doortaa gad inta la doortaa hadda inta waxa waa installed wixii ku rakiban waa sorry inta tagay waxa dooranay midka aragtida qoray example waxaan rabaa Vancouver ee maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg ayaa rabaa lacal so midka allaale midka aad maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg so intaan oo Vancouver jiro ana hadda intaan buu igu jiraan maaragtay maxaa la igu rakibeen intaan labadan iguma install garaysan ama intaan iguma Vancouver kay u baahan tahay okay so Vancouver oo abs subscript ya Vancouver oo subscript iyo bracket only maaragtay waxaan dhooy kala duwan marka midka u baahan tahay inaan dhahdo click kadibna aad taabato calaamada install inaad taabato ayuu maaragtay maxaa la u baahan yahay that's all qodobadaas waa intaas waa mid kale waxaan kala ka soo hadalnay journalka hadii aad tagto oo aragto inaad journalka marka akhrinaysid maxaa u baahan see loo soo xigtaa waa qaybtaas oo hadaa u baahan tahay in soo xigto waxaan laba qayb oo journalka sameeyay ama article-ku laba wuxuu ka kooban wax oo qofkan qorayga isaga uu leeyahay oo theory-giisa iyo result-giisa wax allaala wax noocaas oo kale oo reference aan ka hor qorayn asaasayna asaas ka soo xiganay sida tusaalahan meelahan oo kale sida data sameyn wax allaala wixii maaragtay maxaa la yiraahdaa aanan ay ku hor qoran yihiin citation ay ku hor qoran yihiin waxa raadinay qofka ku hor qornaa raadinaysa qofkaas siinaysa maaragtay maxaa la reference that's all intaas ku soo gabagabeynaa mahadsantiin